السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا ليال وحن ربا وحيرنا كيرادو ويلكا اللي يرادو علي بنات أستراليان كيه جيريودي تدبلنا السوشيال ميديا أي كبرتين ninkaas wuxuu ahaa nin dhalinyaro runtii daadiisu waxay ahayd 30 sano ayuu jiray ilaahi subhanahu wa ta'ala jiradan ayaa ku dhacday cudurka kansarka ayaa ku dhacay bishii 7 ee July 2015 bay jiradaas ku dhacday dhakhtarkiisu wuxuu u sheegay 7 bilood inuu noolaan doono laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray inuu 3 sano oo dambe dib u soo noolaado wuxuu sameeyay markii hore dhaqan ahaan iyo sidoo u dhaqmi jiray iyo qaabka uu maaragtay baabuurka kaliya oo ku socdaayay wuxuu ka bixiyay $600,000 buu ka bixiyay kabaha uu qabo wuxuu ka bixiyay $1,300 xitaa dacas uu lahaa wuxuu ka bixiyay $700 katiinad yar oo gacanta lagu xidho wuxuu ka bixiyay $60,000 wuxuu leeyahay ma aanan islahayn yani sida degdeg ah uu ku geeriyoonaya laakiin ilaahay cudurka jirada markuu ku keenay wuxuu noqday inuu toobad keeno oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu toobad keen dhameystiran uu la yimaado wuxuu sameeyay inuu xoolihiisii uga faa'iideeyo dadka muslimiinta iyo masaakiinta iyo caruurta gaar ahaan Afrika ku nool ayuu xoolihiisii ugu tabarucay maalkiisii oo dhanna waa sadaqeeyay ya subhanallah sidoo dhanna wuu bixiyay waxa lagu wuxuu noqday nin milyaneer ayuu noqday waxaan rabaa markii inaan uga faa'iideysto oo iraahdo dadka walaalaha ah waxa ugu fiican waxa weeye almaalu saalih lirajul saalih sida rasuulku sallallahu alayhi wasallam maal wanaagsan oo qof wanaagsan ilaahay siiyay baa ugu fiican hadaba walaalahayo waxaan rabaa inaan iraahdo xooluhu adduunyadu yeena kugu kadin qofuuna la tagurranaka ad-dunya wa zinatuha adduunyada iyo dhaldhalaalkeedu yuuna kugu maartay kadinin adduunka hadaad noolaato qof walbo oo xoolaha adduunka ugu badan aad sameeyso oo milyaneer aad noqoto waxaad ka qaadaysaa waa kafan iyo xanuudka la marinayo daawada la mariyo iyo waxyaabaha lagu carfiyo markaad dhimanayso kafankaas adduunka aad kala tagaysaa ya nafsu tuubi wa'mali hasanan waxa rabaa qof walbo Allah subhanahu wa ta'ala u toobadkeen wax fiican samee la'alla ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu ku jaazeeyo oo ku abaal mariyo ramadaan buu cali banaad u dhintay albaabada jannadu ay furan yihiin albaabada naartu ay xiran yihiin shayaatiinta la katiinadeeyay utaqa min an-naar ilaahi habeen walba oo dadkiisa badan ka xoreynaya naarta uu ka xoreynayo Allah ayaan isagana u weydiinayna toobad fiican buu lahaay inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala naarta isaga inaga bana ka xoreeyo annagana tusaalo ayuu dad badan u yahay oo maalkooda inay uga faa'iideystaan khayraadka inay ku bixiyaan wajazaakumullahu khayr rabbina hu naxariisto haloo duceeyo hadalladii ugu dambeysay soo hadli kareynin waxay ahayd ishaarada uu bixinayay isoo duceeya marka haloo duceeyo insha Allah ilaahi rahimahullahu rahmatan wasi'a wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ij'al lahu fil qabri rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al lahu fil qabri hufratan min hufarin nar ilaahi jannada rawda ya barha wa dhigo wajazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.